markay ka hadlayeen shabaabka iyo waxyaabaha noocana tatarufkan iyo quluwigan inay mas'aladaas waxay ka dhalatay markii la yiri acmaalul jawaarih iimaanka kamid waxyaabaha qariibkan waxa kamid ah maanta cid kasto khaldan in waxa ay yiraahdeen oo dhan khalad laga soo wada qaado shabaabku haday yiraahdeen iyo alqaacida iyo daacish iyo dhamaantood ba isku daro ilaahay cid aan ahayn lama caabudi kartaa way ku saxsayn al-anbiya wa rusul baan ku waafaqsayn taas laakiin waxa ay ku saxsan yihiin iyaga iyo cid ku waafaqeenba kuma dhaleecayn kartid haddaad leedahay masaa'ishaas waa khalad niqaash cilmi iyo xiwaar cilmi kaga dood kutubtani sheegayeen maxay ku yaala عناوينta ku taala insha Allah inta kutubta soo qaadan inuu akhri doona inagu horena dawaynu akhrisanay waxay sameeyeen daacish iyo al-qaacida iyo shabaab iyo halku thalathatu al-usul kaga yaala ma rabbuka iyo man nabiyuka iyo ma diinuka kitaabka saddexda qodob ka hadlaay halkay kaga jirtaa gaalaysiinta xaq darrada dadka muslimiinta dhiigooda in la xalaasho halkay kaga taala kitaab at-tawhid halkay kaga taala ila abwaabtii soo dhaweydin ka dhigtay baaban mid walbana maqsuudka iyo ujeedada waynu cadeynaa halka waxaynu ka qaadanaynaa hadaba laba mas'alo waa ash'ariye ku saabsan labada mas'alo mid hore waanu sheegay laakiin waxaan rabaa mas'alo kasto inuu soo marro oo i'tiqaadka ash'ariye ku saabsan in marxaat uga keeno hore waxaan idinku iri madhab al-ash'ariye waa madhab ghayr mustaqir wa madhab as-sugnayn wa mas'alo kasto i'tiqaadi oo la soo qaado ash'ariye aqwaal bi kullihi iyo atwaar iyo dawran ay mareen مسألة الإيمان مسألة كمت أبو الحسن الأشعري بالله قول كله أصحاب أبي الحسن الأشعري المتقدمين محي كلين صدح قول متأخرين تودون محي كلين مركز إقرار اللسان لقى هذا اليوم يقولون صدح قول بكلين مركز أشعري ما تبديعين كران ما نضر كران أهل السنة يري الإيمان وقول وعمل الإيمان واعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وهي قول كاسي وأحد قولي أبي الحسن الأشعري أبي الحسن الأشعري إن الدوران ويتبديعيان باتاكد الله تصمع وكذلك وقول أكثر أصحاب أبي الحسن الأشعري المتقدمين وقولك أبي الحسن الأشعري أصحاب تيسي متقدمين تأبدا كودو أي كنت تجين سيشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكسو نقليه waxa la yaab la hadaba kuwada mutaakhiriinta garan kuwada casriga nool qowlka ahlu sunnaha inay tashniiciyaan illa qaarkood oo kamida kuwada muqdisho jooga markay ka hadlayeen shabaabka iyo waxyaabaha noocana tatarufkan iyo quluwigan inay mas'aladaas waxay ka dhalatay markii la yiri acmaalul jawaarih iimaanka kamid oo qowlkaas waxaan ka farcamay bay leeyihiin ودلي استحلال الدماء وحيابها نوعاس كانهم إن إلين دي خوارج أعمال الجوارح إيمانك قدرة مركا قفك أعمال الجوارح إيمانك قدرة إنه واحد تكفيرية إنه ديق حلاشة وحاسك دلي وهذا كذب والسلف كأعمال الجوارح إن إيمانك كمتها بالتقرير شرين ومع هذا كما يدعين تكفير بالباطل إذا التكفير هو بحق ضرة ما هي تكفير حق ضرة وكذلك استحلال الدماء بغير حق ليه قددك إلى حق ضرك وحلاشدينا كما يدعين عدة مركا إياقوا لا الإيمان قول وعمل الإيمان نوعا سيكون عظيم الإيمان قول وعمل ويكون سحسين لكن وحكا لا يكون عين أي يكون خلدين حبا غريب كانوا حكم إذا ما أنت عد كستو خلدان إن وحا أي رهدين ودان خلد لك صوت القاضي وهذا مر حدي وتاكو خلدين هاي تنكلنا واكو خلدين هذا غير صحيح لما هي لا يقف مسلمة وكس حسين وحق وكو وافقسين بقى نشرين حتى الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تكفيرين هي الصحابة المسلمين هايين بيقر سناين المسلمين هين بيقر سناين النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بدنام بو قمر خاتك عي الصوم إيو قرآن أخرس إيو وحاسن وحي كو خلدين ما وحي كو سحسيين لكن النبي وحور شاقة سيئا الله قد دقمن قف كانوا وراني ما ضدك ساو تكن يساو سومي يسا قرآن كو آخر السنة يبا خلدان إما هينو ليه يوي كو خلدين ضدك قاربا ما أنت واحد قارسيسين خوارجتو النبي عليه الصلاة والسلام شاقي ورسيماهم التحليق
inay madaxa xiirtaan baa markaa calaamad u ah gadhna ay la baxaan marka dad gadhka la baxda khawaarij baad noqonaysaa oo nebi maxamed makhaariji buu ahaa isagaasay saxaabadu sheegeen gadh weynaa gadhkana isagaa ina amray in la baxno dhuucfu lixa marka waa ama jahli baa arrintaasi keena ama waa dad qarad iyo ujeeddo arrinta noocaasiyo kale oo sida kuwa maanta odhanaya masalada insha allah waan ka hadli doonaaye nimankan shabaabku waxay ka farcan yihiin dacwadii maxamed ibn cabdilwahaab waxaana taa u daliila waxay haystaan kutubtiisii sida kitaabu tawxiid iyo usuulu halaatha iyo kan shubahaad iyo kuwaasay haystaan dee shabaabku hadday yidhaahdeen iyo alqaacida iyo daacish iyo dhammaantood ba isku daro ilaahay cid aan ahayn lama caabudi karo taa way ku saxsan yihin alambiya warusul baanay ku waafaqsan yihin taas waa diinu ibraahim wa diinu muxamed taas waqadaa rabuka an laa tacbudu ila iyah wabilwaalidayn ixsaana hadday yidhahdeen ducaau gayr ilahi waa shirk adabxu ligayr ilahi waa shirk alistigaahatu bigayr ilahi waa shirk taas waa sax wey kuma khaldana taas waa ku saxsan yihin waxay ku khaldan yihiin ka hadal laakiin waxa ay ku saxsan yihiin iyaga iyo cidday ku waafaqeenba kuma dhaleecayn kartid haddaad leedahay masaa-ishaasi waa khalad niqaash cilmiya xiwaar cilmiya kaga dood kutubtanay sheegayaan maxaa ku yaalla canaawinta ku taalla insha allah intaynu kutubta soo qaadan inu akhri doonaa inagu horena dee waynu akhrisanay waxay samaynayaan daacish iyo alqaacida iyo shabaab iyo halkuu halaathatu lusuul kaga yaalla man rabuka iyo man nabiyuka iyo maa diinuka kitaabkaas saddexdaa qodob buu ka hadlaaya halkay kaga jirtaa gaalaysiinta xaqdarrada dadka muslimiinta dhiigooda in la xalaasho halkay kaga taalla kitaabu tawxiid halkay kaga taalla ila abwaabtiisa oo dhan waydin ka dhigtay baaban mid walbana maqsuudka iyo ujeeddada waynu caddaynay halkay kaga taallaa bal ha ka soo saaraan iyagoo halkay kaga taalla kutubtaas kan shubahaad dadkii shirkiga sariixa u doodayey shubahaadka ay keeneen buu ka jawaabaya halkay kaga taallaa gaalaysiin xaqdarra ah shabaabku kitaabka qur-aanka bay sitaan ka warrama isagana ma loo tuuraya qur-aan iyo 40 labadaba waa sitaan halaathatu lusuul iyo minhaajba waa sitaan minhaajkana ka warrama minhaajka nawawi iyo bayaanka waxa weeyaan camraani inta waa sitaan dee markay dadka kala xukumayaan kutubta fiqiga shaaficiyada ka egtaan marka waxay haystaan oo dhan wada baatil ba iyo waxa lagu arkaaba kitaabka quraanka hadii lagu arko baatil buu noqonaya oo kutubtii fiqigu baatil bay noqonaysaa oo kutubtii xadiidka ka waran saxiix al-bukhari ka waran oo akhrisanayaan dhigayaan qaarkood 40ka nawawi ka waran waladu meel mari ma la oran kara nawawi bay ka soo jeedaan maadaama ay minhaajkiisa 40kiisa haystaan shaaficiyada bay nimankani ku abtirsadaan ma la oran kara maadaama kutubtii shaaficiyada ay haystaan si cilmiya masaa'isha waa in loo kala saafo weey oo dacwatu tawxiid waxa khaldan ee ay dhigtay ee nimankaas ay haystaan bidaliil walbayina waa in lagu sheego waxa saxsan ee dacwatu tawxiid ay ku waafaqeen waa ku saxsan sida khawaarijiba masaa'il badan oo nusuusta iyo salaful umma ay ku waafaqeen ay ugu saxsanaayeen qofku xaq ku khilaafay ayuu ku khalday oo kullunsay كاسوما لو دلا عين كرا وحق كوافقي ما من مسلم الا ويوافق الحق في شيء مسلم كاستبا حق وحب كوافقي والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين